Xasan Raage Cali waa wiil dhalinyaro ah oo la nool xanuunka dhibirka ma haysto hoy uu ka galo dhaxamaha iyo kulaylka dhacaya waxaanu ka soo jeedaa qoys danyara kadib markii laga soo deeriyay xaalad adag oo ku sugan yahay waxaa saaka booqday gudoomiyaha ururka Dar Alle Mukhtaar Maxamed Jaamac iyo sidoo kale gudoomiyaha xaafadda Koosaar waxaanay dadka muxsiniinta ka codsadeen inay gacan ka geystaan sidii dhibta haysta walaalkeen looga damqan lahaa isla markaana bulshada muxsiniinta ka codsadeen inay ka soo qayb qaataan sidii hoy loogu dhisi lahaa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dar Alle walaal maanta waxaynu joognaa la joognaa ninka walaalkeena xanuunsanaya halka ku xiran cidlada bacadka ku xiran kulaylaha ku xiran waxa roob mahiigaana iyo waxa kuleel iyo yamaagi dhacaya isagu bacadka iyo gadiid dhacaya isagu bacadka afrilaadka saacadood taagan dadka muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa ilaahay dadka inagu eegaya waxa ilaahay waxa uu qaban kari waayeen xuskiisina uu soo celin kari waayeen ilaahay subhanahu wa ta'ala inagu eegaya inaan isku naxariisano runtii waad aragtaan suuligu galaya waa kaas waa kamardaydii ka muuqda 24 saacadood bacadkaas u fadhiya ka daranta birtina uu silsilada ugu xidhantayna bacadkaas ay ku aasan tahay 24 saacadood halkaas u fadhiya waxa weeye hooyadii waa taas oo waad aragtaan waxa weeye waxa iyaduna la tacabsan tahay nabaradii uu ku dhuftay ilaahay khayr ha siiyo waxaan soo tusay oo noo keenay gudoomiyaha runtii degmada Koosaar ilaahay khayr siiyo Xaaji Maxamed waa nin runtii dadkiisa iyo dadkiisa jecel waxaan ka codsanayaa maadaama lagu jiro 10 kii dambeeyay maadaama lagu jiro maalmihii khayrka lahaa ee halay maadaama sadaqadu tahay waxa kaliya wax soo socda iyo qadar soo socda iyo wax lagu qoray ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kaaga difaacay balaayana ilaahay dib kaaga dhigayo waxa la sadaqadu yaryarays ma laha ninka waxaynu doonaynaa wixii awoodeena walaalkeena inaynu ku taakulayno ilaahay khayr haydin siiyo waxa weeye waxaan idin ka codsanayaa niga waxa weeye wixii aynu qaban karnaba inaynu qaban hadii Allah wada leedmo Dar Alle walaal maanta waxay idin ka codsanaysaa oo idin ka barayaysaa in qofka walaalkeena ee xanuunsanaya noocaas ee waliba dhalinyarada ah inaynu wax la qabano wixii itaalkeena qof walba ha eegin waxa koonka ku yaala ee waxa koonka aakhira dhiganayso ya Dar Alle walaal Mukhtaar waana mahadsanyiin waxay ku mahadsan yihiin sida wanaagsan runtii dadnimada ku jirto ama danqashada ku jirto ee ay dadka dhibirku haya xanuunsanaya u dhaxmarayaan ama ay xaaladooda ula socdaan ama ay u tabinayaan ilaahayna waxaan leeyahay ilaahay ka jisaysiyo cid kasta oo runtii islaama oo jecel inay dadka caynkaas taakulayso oo jecel inay ilaahay dartii wax ula baxdo oo jecel inay wax hormarsato waxaan leeyahay meeshii ugu wanaagsanayd ee wax lagu bixin lahaa ayay tahay meeshanu dadkan waxa weeyaan dad runtii ilaahay xiskoodii ka qaaday dad badan baa xaafadda jooga laakiin marka waxaan la taaganahay Xasan Raage Cali in la yiraahdo oo dhalinyaro ah oo u dhashay firfircoon aad iyo aad fariid u ahaa markii uu runtii xiskiisa qabay shaqaysan jiray cidna aan tuugi jirin maantana aragtaan muuqaal ahaan sida uu yahay iyo wuxuu ku dambeeyay ilaahayna waxaan horta marka horeysa ka baryaa inay cudur ka dulqaado oo caafimaad ugu bedelo sida ugu dhaqsaa badan leh qof kasto islaama oo danqanaya oo maanta runtii danaynaya aakhiradiisa iyo runtii dadka jilicsan ee dhibaataysan inay taakuleeyaan waxaan leeyahay wax hormarsada wixii aad la baxdaan un baa leedihiin waxa maanta haysataan ma lihidin qof kastaba hanti si kasta hadii uu ururiyo u dhaqa cidun buu kaga tagayaa laakiin waxa uu runtii ku badbaadayaa oo maalinta saymaa kaga baxaya waxa uu la baxay oo hormarsado waxaan leeyahay soo taakuleeya hooyada dhashay wiilkan oo ah hooyo waayeela ayaa iyaduna sidoo kale dalbanaysa inay dadka muxsiniinta ay gacan ka geystaan sidii dhibta haysata ay uga dulqaadi lahaayeen xanuunsanaya waxa waad mahadsantiin kulligiin gudoomiyaha noo yimi sharafta leh ee halka nagu haya hadii aakhiradiisa iyo iftiinkiisa labadaba u shaqaysanaya kuwa u yimid ee uu wado islaamka oo dhan waxaan ilaahay uga baryaynaa aakhirana jannadii adduunkana filnimco suuligu waa ka dumay ma garatay bacadkaasaan halkaasaan waxaan codsanayaa hadaad wax noo dhisi kartaan shaqahantiya baanu leenahay walaalihiina neef xoolaa ma haystaan waa cayd meel tuman laba joogo haddaba haddii aad ka qayb qaadanayso taakulada loo samaynayo walaalkeen Xasan Raage waxaad kala xidhiidhi kartaa lambarada ka muuqda shaashada Cabdiraxmaan Trike telefishinka Dar Alle Burco.